qaab dhismeedka wasaaradda boosada isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada xukuumadda federaalka Soomaaliya waxay isugu jiraan qalab iyo xirfad yahanimo. Dhismahani waa wasaaradda boosada iyo isgaarsiinta tiknoolajiyada waxa ka muuqda isbedel xooggan ee dhinaca dhismaha ah. Madaxda sare oo hormuud ka yahay wasiirka waxa laga miri dhaliyay soo celinta adeegyadii ay ummadda u haysay tan iyo markii la ansixiyay xeerka isgaarsiinta qaranka oo furo u noqday diyaarinta Soomaaliya oo ay ka qayb gashay tartanka tiknoolajiyada caalamka. wasaaradda boosada isgaarsiinta tiknoolajiyada runtii waxay nasiib u yeelatay sharcigii ugu horeeyay 30 sano ka bacdi la dhaqan geliyo la baas mareeyo ama la ansixiyo inuu ahaa sharciga isgaarsiinta qaranka. boosada isgaarsiinta tiknoolajiyada waxay ku guuleysatay 30 sano ka bacdi markuu dalku uu dib u soo kabtay in sharciga isgaarsiinta la dhaqan geliyo. sharcigaas oo ogolaanaya in dadka Soomaaliyeed ay hantaan ama dib gacantooda ay u soo gasho in isgaarsiintii ay maamulaan oo ayagu ay maamushaan waxoodii. in ka badan 15 wax qabad ayay ku guuleysatay wasaaradda boosada isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada kuwaas oo wax la taaban kara ah. waxaa suurta gashay in la soo wareejiyo oo dib ay Soomaaliya gacanta ugu dhigto calaamadii internetka ama astaantii internetka ee .so. waad ogtihiin dad Soomaaliyeed oo ganacsataa ayaa gacanta ku hayay muddo 10 sano aan ku shaqaysan hayay, laakiin nasiib wanaag wasaaradda ayaa ku guuleysatay inay gacanta dib ugu soo hanato oo ummadii Soomaaliyeed maanta ay u hayso oo ay tahay meel maanta ay ka soo abaari karaan. waxaa wasaaradda u suurta gashay oo ay ka mid noqotay oo dib u soo celisay xubinnimadii isgaarsiinta caalamiga ah. wasaaraddu waxa ay ka gaashaamantay in dalka ay ku dhacdo xaalad internet xumo, soo celinta adeegii boosada, hirgelinta xeerka isgaarsiinta qaranka iyo fulinta dhammaan kaabayaasha tiknoolajiyada casriga ah oo lagu soo dhiso ay ku howlan tahay xilligan isaga ah. 2019 in ay dhammaan shirkadaha Soomaaliyeed ee isgaarsiintu ay iswici doonaan oo qofka Soomaaliga ah ay u suurtageli doonto hal SIM card inuu isticmaalo asaga oo dhammaan shirkadaha oo dhan wacahay. Hormuud baad waxaad ku wacaysaa nation baa waxaad ku wici doontaa Hormuud, Telecom baad ku wici doontaa, Samtel baad wici doontaa. yani waxa weeye dhammaan inta shirkadaha ah ee isgaarsiinta ku abtirsada bisha 12 waxaa la furi doonaa inay iswicitaankooda la furi doonaa. arrintaas oo rajaynayno inay ummadda Soomaaliyeed ku farxi doonto. marka aad eegto xarumaha kale ee dawladda oo dib u soo dhismaya waxa ay hormuud u noqonaysaa wasaaradda boosada isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada in lagu daydo. waa horumar kale oo ay xukuumaddan ka mira dhalisay. Muuse Cismaan Abtow, telefishinka qaranka Soomaaliyeed, Muqdisho.